maxkamadda gobolka Hawd ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 5 eedaysane kuwaasi oo lagu soo eedeeyay dambiye kala duwan oo ay ka mid ahaayeen dad qaab sharci darra dadka uga tahriibin jiray jiida gobolka Hawd iyo sidoo kale eedaysanayaal ay maxkamaddu ku heshay inay burburiyeen jidka laamida isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Balligubadle. maxkamadda gobolka Hawd waxa eedaysanayaashaasi ku xukuntay xadhig iyo ganax lacageed. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hawd Sheekh Cabdullaahi Maxamuud oo Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunkan lagu riday 5 eedaysane. hal sano oo xariga iyo 2 malyan oo tafsiira sidoo kale baabuurka lambarkiisu yahay 244983 liisan 60 waxay ku xukuntay 5% markaan soo qiimeynay la soo qiimeeyay noqotay 2 malyan iyo 500 25 jir labadan nin oo ah wadadii laamayda ahayd ee nin waliba lacagta keenay inay fujisanayeen dubbihi ay la dhacayeen uu yahay ka maxkamadda horteeda iyaguna sida qiraal ku yihiin oo uu saddexaynayay kay ku eedeeyeen dire kaasoo la oranayo Maxamed Cusmaan Yuusuf المراقب كم قعدير مرو وحيكون حكمتي لبضان مد والبا صدح دانين كام مقنها إيوه لبضان حاضر كابا وحيكون حكمتي مد والبا هل السنة إيا 2 مليان أو تصيرا sidoo kale xukunkan waxa ka hadlay saraakiisha booliska iyo asluubta ee gobolka Hawd waxayna fariin adag u direen dadka isku daya inay ku kacaan dambi noocan oo kala ah iyaga oo sheegay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dadka lagu helay dambi noocan oo kala ah. shaqada police-ku aad bay u xogeystay si wanaagsan way wada hawsha halkan saaka xukun baa ka dhacay maxkamadda gobolka xukunkaasoo xukunno kala duwan oo dad kala duwan lagu riday qolo wadada lagu soo qabtay qaar wariyaal lagu qabtay qaar tahriibayaal baa lagu qabtay. geesta kale waxa iyaguna xukunkan goobjoog ka ahaa maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Xaaji Xasan Cali waxayna mas'uuliyiintani soo dhaweeyeen qaabkii uu dhacay xukunkani. tahriibta iyo wadada aynu lacagta ururino cidda ka guranaysa dhagaxaysiga waxa markii waxaan ku digayaa iska rugooyinka iyo nimanka dhagax saara inay iska ilaaliyaan waxa laaliyo wax wadada ku dhow halka uga soo gurlaan hadii inta ay ka gurtaan hadii lagu dhisay inay iibiyaan waxaan ugu digaynaa mar labaad ninka lagu soo qabto imika xukun yar oo khafiifa ayaa wallo naxariistay maanta in dhowr sanadood lagu xukumo doono ninka lagu qabto dhagax uu wadada ka qaad. arrinka tahriibta waxaan ogaanay hadii la shaqeeyo si daacadnimo ku jirto loo shaqeeyo qaranka loo dadaalo in wax badan la qaban karo. arrinka tahriibta runtii inuu sooba afjarmo dadka Itoobiya ka soo tahriibay Soomaaliland dhexmara in laba soo afjaro ay istaagto qarkan ula saaranay waxaan rajaynaynaa hadaan bil dambe si shaqeyno inuu arrinkaas istaagi doono. inta baabuurta la qabtay iyo tahriibayaasha la qabtay iyo inta iyagoo maqan la xukumay waxa uu helisay riboodada aanu hayno waxa weeye halkay ka soo galaan cid taakulaysa ama ciidan ha ahaadaan ama shicib ha ahaadaan meelaha lagu ururiyo wadooyinka ay maraan waxaanu haynaa runtii warbixin dhaba baanu haynaa rasmi ah. Maxamed Jiciiro Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.